mudane maxamed kahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida qabanqaabada maalinta qaranka ee 18 May oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegay in xuska dabaaldega maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May ay qabsoomayso maalintii ay ku taariikhaysaneed ee ah 18 bisha shanaad. waxa qorayaanu maanta halka ka qabanaynaa waxa weeye inaanu iclaamino 18 May waxa la qabanayaa maalinteedii caadiga ahayd ee bisha May 18keeda ee inoogu suntan maalinta qaranimada Soomaaliland. waxa lagu yaraa xoogaa dadku ku yara arbushmay sanadkii hore waxaynu qadinay maalin oo ay sababtu ahayd Ramadaan baa maxaan ku dhahday maalin qura ka horreynaysay. hadda imika bisha Ramadaan waxay noqonaysaa bisha 6deeda iyo haddii alla yiraahdo aynu filaynaa marka 12 casho dhow baa ka hadhaya 18 May suuragal way noqon kari weyday inaynu qadinno oo aynu maalintaas soo qadinno sida la ajligeed waxaynu maxaan ku dhahday ka dhiganaa 18 May ayay noqonaysaa maalintii dabaaldeg. wasiirku waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliland ay si weyn ugu diyaar garoobaan xuska maalintaasi isagoo geesta kalena ku booriyay inay shacabku ilaaliyaan amniga guud ee dalka isla markaasina ciidamada ammaanka ay kala qayb qaataan. shacab weynaha reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool ee haybada iyo sharafta leh ee xorriyaddan aad iyo aad u soo gardaadiyay ee nabadgelyadeeda iyo maamulkeeda iyo dawladnimadeeda iyo qarannimadeeda aad iyo aadka ugu soo maxaan ku dhahday uga soo shaqeeyay ee halganka dheer u soo maray ee nabadgelyadeeda soo xasiliyay ee suurageliyay maanta inuu dalka Soomaaliland uu nabadgeliyo uu ku suntan yahay inaynu maalintaas si wanaagsan ugu diyaar garowno dadweynuhu u diyaar garoobo magaalooyinka laga shaqeeyo bilicdooda iyo nadaafadooda cid waliba gurigeeda iyo hoygeeda ganacsiga ay ka shaqeyso. waxaa sidoo kale wasiirku u soo jeediyay maayarada magaalooyinka dalka inay kor u qaadaan bilicda iyo nadaafadda magaalooyinkaasi. gudidu u faraysaa maayarada degmooyinka kala duwan ee heerarka kala duwan leh inay siday u dhan yihiin aad looga shaqeeyo magaalo walba bilicdeedu ay soo baxdo. ganacsatada guryaha deegaanka caadiga ah dadka maxaan ku dhahday ganacsiga magaalooyinka waaweyn ku haysta iyo dariiqyada waaweyn inay aad iyo aad uga shaqeeyaan inay la shaqeeyaan maamulada. waxaanu kaloo doonaynaa inaanu kasii dardaaranno dadkana aanu wargelino had iyo jeer maalinta 18 May dadku iyagoo dabaaldegaya farxadda awgeed dhalinyaradu aad bay gaadiidka u socodsiisa. waxaan ku dardaarmaynaa in gaadiidka la joojiyo oo la xakiyo ilaa iyo inta laga fasaxayo maalinta dabaaldega uu la gelayo ee ciidamadu marayaan ee qalabka gaadiidku marayo in dadka maxaan ku dhahday loo naxariisto ciidamadu inay raacaan awaamiirta iyo nidaamka biliiska iyo taraafikada. ayaamaha ka horeeyana waxaan doonaynaa in gaadiidka la yareeyo socodkiisa la yareeyo waliba habeenkii la yareeyo asbaabo fara badan oo guud. waxa uu wasiirku ugu baaqay warbaahinta dalka inay wararka la xiriira munaasabadda maalinta qaranka 18 May ay gaarsiiyaan daafaha caalamka. baada saxaafadda waxaanu kula talinaynaa waa maalintii qarannimada Soomaaliland qarannimadii Soomaaliland ha la bandhigate dadkeedii waayeelka ahayd ha la wareysto taariikhdeedii maxaan ku dhahday ilaa iyo ingiriiska iyo ilaa iyo daraawiisha ilaa iyo meel walba ha la soo bandhigo. facebookyada iyo saxaafadda wixii yaryaraayay lagu sii dayn jiray maantoo kale ummad waliba maantoo kale qarannimadeeda ayay ka hadashaa. marka qarannimadeeduna astaamay leeyihiin astaamahaasaa lasoo bandhigaa. idinkana aad iyo aad waan idinku mahadnaqaynaa. Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.